السلام عليكم. waxaan halkan ku soo marinayaa qisa dhex martay khaliif kamida khaliifooyinkii umawiyiinta sidoo kale ahaa khaliifkii ugu cadaalada badnaa umawiyiinta waana al-khaliifa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz maalin ay tahay ciid ayaa waxa uu soo galay dadkii muslimiinta ahaa si ay ugu tahniyadeeyaan yacni ugu hambaliyayaan farxadda ciida. dadkii waabeena markii ay baxeen kadib waxa uu soo galay Umar bin Abdul Aziz ilmaha yaryar waxa ku jiray inan uu dhalay Umar bin Abdul Aziz isagoo xiran dhar qadiimi ah oo dhamaaday ilmaha dadweynahana ay xiran yihiin dhar cusub oo qurxoon. arintu markay halka mareysay waxa ooyay Umar bin Abdul Aziz markuu ooyay waxa uu imaaday inankiisii markaasuu yiri aabe maxad madaxaaga u raaricisay oo ka oysiiyay. Umar bin Abdul Aziz wuxuu ku jawaabay maya wiilkaygiyo kaliya waxaan ka baqay inuu qalbiga ka jabo oo aad niyo jabto adigoo ku dhex jira ilmaha shacabka oo aad xiran tahay dhar qadiimi ah oo dhamaaday iyaguna ay xiran yihiin dhar cusub oo qurxoon. wiilkii ayaa wuxuu yiri aabe waxa jabaya qalbiga qof Ilaahay gartay kadibna ku caasiyay waxa jabaya qalbiga qof labadii والد ku caasiyay laakiin aniga aabe wallahi qalbigayga ma jabayo run ahaantii wiilkaas run ayuu sheegay ciid iyo farxad waxay u sugnaatay qofkii Ilaahay ateeca maalin waliba oo ku soo mara iyo saacad kasto ku soo marta hadii Ilaahay aad ateecdo waxaad ku sugan tahay ciid iyo farxad sida daraadeed mid kamida salafkii hore ee fiicnaa ayaa wuxuu yiri anagu waxaynu ku sugannahay farxad haday boqoradu ogaan lahaayeen farxadaas seef ayna la dhici lahaayeen maalin waliba oo aan Ilaahay lagu caasinin waa ciid maalin waliba qofka muslimka ah soo mara isagoo Ilaahay ka baqaya oo xusaya oo Ilaahay ku shukrinaya waxay u tahay ciida uma ahaanin qofka dharka cusub xirta ciida waxay u ahaatay qofkii amalkiisa khayrka ah badiya oo Ilaahay ateeca maalinta damban u diyaar garooba.